ka soo qaad waxaa tahay Afrikaan ka soo jeeda Nigeria. dhawaan ayaad guursatay waxaad doonaysaan dalxiis adiga lamaanahaaga aad ugu baxdaan honeymoon ama in aad soo aragto goobaha caanka ah sida dhisma taariikheedka Vatican, Eiffel Tower iyo weliba dhismaha boqortooyada Buckingham Palace. si walba ha ahaato waxaa ku haysta caqabad weyn waana baasaboorkaaga. baasaboorka Nigeria waxa uu ku jiraa nambarka 95 qiimaynta baasaboorada adduunka, halka 45 dal oo keliya toos aad ugu qaadan kartid dalku galka imaanshaha garoonka. kani waa waddanka leh baasaboorka ugu qiimaha badan leh adduunka waa Japan. socdaalayaasha reer Japan waxay baasaboorkooda ku tegi karaan fiisa la'aan 190 dal. xaaladdan ayaa laga dareemayaa dhammaan Afrika. qaybta hoose ee qiimaynta awoodda baasaboorku waxa ugu badan waddamada Afrika. kaliya 2 waddan oo Afrika ah waa Seychelles iyo Mauritius ayaa ku jira kaalinta sare ee kontonka ugu horeeya. haddaba maxay tahay saamaynta awoodda baasaboorku? xaaladaha qaarkood awoodda baasaboorka waxaa saamayn ku yeesha colaadaha sida lagu arkay Liibiya oo uu hoos u dhac ku yimid ilaa 16 jeer. laakiin guud ahaan waddamada gobollada kale waxa ay kor u qaadayaan awoodda baasabooradu ay leeyihiin. haddaba safarkaaga dib inoogu celi. haddii aad sidato baasaboor Nigerian ah waxaa lagaga baahan yahay helista ogolaanshaha viiso ilaa 180 bardhamaad ama dal oo adduunka ah. waana caqabado ay la kulmaan dad badan oo sita baasaboorada dalalka Afrika. tusaale, muwaadiniinta Kenya waxaa looga baahan yahay shuruudo adag marka ay dalbanayaan dalku galka dalka UK. shuruudahaasi waxaa ku jira cadeymaha dhaqdhaqaaqa xisaabaha bangiga aad leedahay bilihii la soo dhaafay, tigidhkaaga soo noqoshada iyo lacag boos celin ah oo hoteelka aad degayso oo aad bixinayso ugu yaraan $125. iyadoo ay jiraan dhammaan arrimahani haddana ma haysatid damaanad ah inaad helayso fiisaha UK. dhinaca kale muwaadiniinta UK waxay dalku galka Kenya ka qaataan garoonka. haddaba maxaa sabab u ah arrinkan? ma dadka sita baasaboorada Afrikaanka ayaa jecel inay sharci darro ku joogaan waddamada galbeedka oo aysan soo noqon? xaqiiqdu waa maya. marka loo eego cadeymaha la'aanta socdaalka, 3% soogalootiga ku nool waddankaasi ee Maraykanka ayaa ka soo jeeda Afrika. arrinta xiisaha badan leh, 5% dadka sharci la'aanta ah ee Maraykanka jooga waxay ka soo jeedaan asal ahaan Yurub. sidoo kale daraasadda hay'adda Pew Institute ay soo bandhigtay 23% dadka sharci darrada ku jooga midowga Yurub waxay ka yimaadeen waddamada aan ku jirin midowga Yurub. marka la barbar dhigo 17% ka yimid waddamada saxaraha ka hooseeya ee Afrika. sanadkii 2019 kulan baarlamaani ah oo ay u dhammaayeen xildhibaanada waddankaasi UK waxa ay qireen in dadka Afrikaanka ay laba jibaar ka badan yihiin diidmada dalku galka dadka laga siiyo waddanka UK markii loo eego dadka kale ee soo codsada. warbixinta waxaa saldhig u ah codsiyada la diido, taas oo ku salaysan go'aan qaadashada iskhilaafsan oo muujinaysa go'aamo kala duwan oo laga gaaray codsiyo aad isugu dhow. helista fiisayaasha oo aad u adag waxay uga dhigan tahay Afrikaanka in aysan soo booqan karin xubnaha qoysaskooda ee dibadda jira, ama in aysan heli karin jaanis ay ku aadi karaan barashada aqoonta sare ee dibadda. la arki doonee in ay xaaladdan isbeddesho ama ay sidan sii ahaato.